بسم الله الرحمن الرحيم. حرمنا maanta inaan la wadaagno macaamiisheena qiimaha badan adeegyada aan siino. Marna maanta meesha inaan ka sharaxno shirkadda korontada Beko iyo maxaa la yiraahdaa waxa qabato xarmna inaan sharaxno kaliya adeegyada aan macaamiisheena siino. Way kala duwan yihiin adeegyada macaamiisha shirkadda korontada Beko ay siiso macaamiisheeda. Waxa koow ka ah macaamiil aan haysan adeega korontada Beko in la siiyo adeega korontada macaamilku markuu dareemo baahi koronto waxa asal ah inuu la soo xiriiro xafiisyada shirkadda korontada Beko annagana waxa mas'uul naga saaran tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan ugu ixtiraamka badan ugu haboon aan ugu adeegno una siino dab macaamilku markuu imaado xafiiska shirkadda waxa loo diraa wax la yiraahdo survey ama cabir guriga macaamilka lagu soo sameeyo oo soo sameeyo injineer kamid ah shirkadda injineeradeeda halkaana lagu go'aamiyo dabka macaamilka oo rabo nooca uu yahay hadduu yahay trifaas iyo hadduu yahay minifaas tan waxa bilaabanaya inta kadib dabkii in la siiyo macaamilkaas shirkaddu waxay ugu tala gashay macaamiisheeda daqiiqado xadidan in loogu adeego daqiiqadaha xadidan waxa kamid ah macaamilka cusub adeeg korontada u baahan waxaan ugu adeegnaa muddo 3 saacadood ah 3 saacadood waxay ka bilaabanaysaa markuu xafiiska shirkadda imaado ilaa looga dhameynayo adeega guriga macaamilka markii la tago waxa go'aan laga gaaraa sidoo kale qalabka macaamilka uu u baahan yahay korontada in lagu siiyo fiiladii korontada lagu siin lahaa waxa la yiraahdaa saacadii korontada lagu siin lahaa waxa ay dhan macaamilka loo sheegaa kadib markuu soo iibsado waxa ay dhan waxay ku dhex jiraan saacadii macaamilka aan ugu adeegi lahayn inta marka waqtiga inta la eg waxa qayb ka jaangooyi kara macaamiisha shirkaddeena sida ay qalabka loo diro u soo iibsadaan ayay ku xiran tahay saacadaha laakiin shirkaddu way ka go'an tahay 3 saacadood inay macaamilka cusub koronto ku siiso waa qodobka koobaad kaasu qodobka labaad waxaan rabnaa inaan sigana uga hadalno macaamiisha korontada Beko haysta ee u baahan adeegyadooda in loogu sameeyo dayactir koronta ka dantay koronta maxaa la yiraahdaa ka ciladooday waxa soo dhan waxaan ugu tala galnaa ayadana inaan daqiiqado kooban ugu adeegno siyaabo kala duwan oo macaamilku nagu soo gaarsiin kara in adeegiisii waxyeello gaartay ama ay ka dantay waxa kamid ah koow inuu soo waco call center-keena 333 inuu soo waco kadib loo diiwaan geliyo ciladii uu soo sheegtay ciladii markii loo diiwaan geliyo waxa bilaabanaya daqiiqado loogu tala galay macaamilka loogu adeego daqiiqadaha 30 daqiiqo ay noqonaysaa marka loo diiwaan geliyo ilaa ciladiisa loo dhameeyo 30 daqiiqo marka waxa ugu tala galnay in macaamiisha muhiimadda adeegeena uu leeyahay in loo dedejiyo oo macaamilka xaaladdu raba ku sugnaado inuusan adeegeeni tabinin waqti badan wuxuu kaloo nagu soo gaarsiin karaa fariintiisa inay adeegii waxyeello ka gaartay ama uu u baahan yahay in loo shaqeeyo social media gaar ahaan page-ka aan ku leenahay Facebook ee Beko isagoo u soo hadlaya qaab hab qoraaleed ah chatting inuu soo sameeyo waxaana loogu jawaabi doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan isla sidoo kale markuu halka ku soo gudbiyo cabashadiisa ama wixii uu u baahnaa in loo qabto waxa la diiwaan gali doonaa waxa la yiraahdaa ciladii iyo hawshii uu rabo in loo qabto isla sidaas la mid ah waxa loogu adeegin doonaa waqti xadidan oo nus saacihii 30 daqiiqo haddii 30 daqiiqo markii gurigiisa lagu tago ay soo laabato information kale ama warbixin kaleeto oo macaamilka inuu fiilo u baahan yahay inuu laambada u baahan yahay in cilad kale haysato waxa la siiyaa warbixin inuu qalabka soo dhameystirta ah si loogu adeego marka macaamiishana waxaan weydiisanaynaa inay nagala soo xiriiraan call center-keena aaladeena social media gaar ahaan Facebook meelaha iyo dhan waxay noqon kartaa meelaha ay nagala soo xiriiri karaan sidaas la mid ah waxay tagi karaan xafiiska ugu dhow inta haddii ay macaamiishan ay awoodi waayaan waxay tagi karaan xafiiska ugu dhow ay u baahan yihiin in adeega looga qabto
waxay macaamiisheen waxyaabaha ay u baahdaan ka mid ah gurigii uu deganaa inuu ka guuro guri kale uu dego waxaan ugu adeegi doonaa sidaas la mid ah inuu la mid yahay macaamiishii ciladu haysteen oo maxaa la yiraahdaa gurigii korontadii ku jirta in loo wareejiyo guriga uu degan in loo wareejiyo macaamiisheenu waxay u baahdaan inay iska hakiyaan adeegii korontada ayagoo markaa gurigii dhisanaya ama guurayo magaalo kale to degaya baahida markay u baahdaan waxay ku xiran tahay inay xafiiska la soo xiriiraan waxaana loogu adeegi doonaa isla waqtiga aan soo sheegnay ee xadidnaa shirkaddu waxay diyaarisay adeeg la yiraahdo OTS waxaa laga soo gaabshaa on time service yacni qofkii in loogu adeego waqtigii loogu talagalay daqiiqadaha loogu talagalay haddaan macaamilka loogu adeegin wuxuu dib u soo wici karaa halkii laga diiwaan geliyay ciladiisa oo ahayd call centerkeena ama xafiiskii markaa uu tagay wuxuuna dhihi karaa maxaa waqtigii laygu talagalay iguma adeegin waa qofkii dib u dhac dareema taa marka OTS kaas waxaan rabnaa macaamiisha laftirkooda inay halkaa ogaadaan in adeega noocaas kamiriga u diyaarshay oo maxaa la yiraahdaa laga taxadarayo inuusan adeegooda ku dhicin dib u dhac macaamiisheena sidaas la mid ah waxaan u diyaarinay habka biil bixinta inta badan waxa laga yaabaa macaamilku biilka markii laga soo qoro inuu yiraahdo xageen ku bixiyaa yaa iga qaadaya telefoon ii sheega si fudud macaamilku wuxuu ku diri karaa maxaa la yiraahdaa akoonka shirkadda oo maxaa la yiraahdaa xidig 799 akoonkii dan guri nambarkiisa inuu geliyo sida wuxuu u bixi karaa waxa la yiraahdaa online payment shirkadda oo diyaarisay waxaan loogu talagalay inuusan macaamilku ku wareerin xafiisyada shirkadda maxaa la yiraahdaa dadka la raadintood inuusan waqti ku luminin waqtina uga bixinin gurigiisa asigoo jooga sariirtiisa jiifa inuu si online u bixiyo lacagta sidaas la midana si online u soo dalbado adeegii shirkadda uga baahnaa waana mahadsantihiin macaamiishaana waxaan leenahay 100% mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.